السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومهتسنتهين وقالكم محربا إن ندي كل وذاقه qofkii 79aad oo dacwad lagu soo ogo kiiskii Feeding Our Future oo noqotay haweeney Soomaaliya isla markaana la qabtay iyadoo tikid u jiran yahay oo doonaysa inay wadanka isaga baxdo arintaasi waan idin la wadaagaya Salim Saciid oo aan ognahay isaga iyo Amy Back in ku dhawaad sanad ka hor dambi lagu helay ayaa hadda dacwadogayaasha federaalka waxa ay doonayaan guryihii ama hantidii uu ku iibsaday lacagtii la sheegay in uu Feeding Our Future ka qaatay in dawladdu ay doonayso in ay dib ula wareegto lacagtaasi ilaa iyo intee ayay dhan tahayna waan idin la wadaagaya waxaan ognahay howlgalkii Paris oo maamulka Trump ay sheegeen in ilaa iyo 5600 oo qaxooti Minnesota jooga in dib Paris loogu sameynayo qaarkoodna la xiray hadda maxkamad federaal garsooraheeda waa kii ku dhawaad 3 toddobaad ka hor arintaasi si ku meel gaar ah u joojiyay amarkii waa uu dhacaya haddana mar kale ayaa dacwad la xareeyay xubnaha u dooda ama hay'adaha u dooda xuquuqda dadka qaxootiga ama kuwa soo dhaweeya Ilhaan Cumar ayaa kamid ahayd dadkii maxkamadda tagay isla markaana shirka jaraa'id ku hor qabtay haddaba Ilhaan maxay ka tiri qabqabashada qaxootigan sida sharciga ah wadanka ku yimid iyo maxayse dawladda ay ku eedeynaysaana sidoo kale waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada kiiskii Feeding Our Future oo aan ognahay musuqmaasuqii ugu ballaarnaa ee ka dhacay gobolka Minnesota oo lagu eedeynayo dadka ugu badan ee ku lug talaynay Soomaali yihiin ayaa wali baaritaankiisa uu socday waxaan ognahay dacwadogayaashii inta badan kiiskaasi soo waday 3 sano ee la soo dhaafay intooda badan hadda waa is casileen marka qofkii ugu horeeyay ee dacwada lagu soo ogo markii dacwadogayaasha is casileen ayaa waxa ay noqotay hooyo Soomaali ah oo magaceeda la yiraahdo Fahiima Maxamuud hooyadan waxay iska lahayd goob daykeerada sababta hadda baaritaanku uu soo galay waxa ahayd shaqo aan shaqadoodii ahayn ayaa qaarkood lagu arkay iyagoo qabanaya maxaa yeelay kiiskii Feeding Our Future ayaa soo galay oo waxay dhahayeen cunto ayaan ku bixinaa oo caruur ayaan ku siinaa waxa la dhahayay daykeerka ay hooyadan Soomaalida lahayd Future Leaders Early Learning Center ayaa lagu magacaabay xaruntan waxana ay sameysay sanadkii 2015 laakiin sanadkii 2018 ayaa waxay ka diiwaan gelisay Feeding Our Future iyadoo sanadihii 2020 ilaa iyo 2021 sheeganaysa in caruur 60,000 gaaraysa ay quudinaysay bil kasta sidaas darteed waxa lagu soo oogay hal dacwad oo ah lacag isdaba marin ama money laundering lacagahan sida sharci darada ah loo kala diro ayaa lagu soo oogay waxana sidoo kale in haweeneydan ay sheegtay daykeerkeeda inay xireyso talaadadii la soo dhaafay sida laga arkay Department of Human Services oo Minnesota ama waaxda sidoo kale u qaabilsan gobolka Minnesota caruurta iyo qoysaska u qaabilsan sidoo kale waa ay u sheegtay marka talaadadii la soo dhaafay ay sheegtay in daykeerkeeda ay xireyso laakiin waxa la soo xiray hadda Khamiistii oo 15 bisha ahayd maadaama la arkay in ay tikid jaratay oo London ay ku socotay isla markaana 20 bisha ay baxaysay oo shalay ku beegnayd laakiin 5 maalin ka hor ayaaba la ogaaday oo waa la soo xiray isla markaana baasaboorkii ayaa laga qaatay haddana waa la sii daayay sawirkan waa markii xabsiga la xiray oo laga qaaday waxa sidoo kale la arkay email mid kamid ah shaqaalaha Amy Back ina u shaqeynaya iyo iyadoo isweydaarsadeen emailkan waxay Fahiima Maxamuud ay ku dalbanaysay caruurta ay quudisay oo 500 ah in ilaa iyo 1,000 loo gaarsiiyo Amy Backna waxay u soo qortay ladha u ogolaaw in ay arintaasi samayso marka waxa la ogaaday bangi accountiga daykeerkeeda oo iska lahaa intii u dhaxaysay December 2020 ilaa July 2021 in ay soo gashay lacag gaaraysa $850,000 lacag ka badan iyadoo sidoo kale 125,000 oo kaliya cunto lagu bixiyay waxana sidoo kale jirta in paymentiye kale company iyada xiriir la lahaa la arkay in hantiye fara badan lagu iibsaday marka hadda gabadhan Soomaalida ah ee Fahiima Maxamuud waxay noqotay qofkii 79aad ee dacwada lagu soo ogo kiiskan Feeding Our Future iyadoo welina hadda baaritaanadu ay socdaan dhinaca kale waxaan ognahay Salim Saciid oo isaguna milkiilayaasha maqaayadda Safari Restaurant kamid ahaa iyo Amy Back oo haweeneydii madaxda ka ahayd ururka Feeding Our Future in iyaga dambi lagu helay ku dhawaad sanad ka hor bishii March
ee saddexaad 19 sanadkii 2025 ee dhamaaday. Amy Bag December waa tii garsoore federaal uu amray hantideedii in dawladdu ay la wareegto ilaa iyo 5 milyan ka badneed oo gawaari iyo dahab iyo jewelry isugu jirtay. Hadda dacwadoogayaashu waxay doonayaan Salim Saciid hantidii uu ku iibsaday lacagtaasi oo Feeding Our Future ka helay oo hantidaasi oo lagu qiyaasay 7.8 milyan in dawladdu ay la wareegto. iyadoo hadda dawladduna ay ku guda jirto sidii ay ula wareegi lahayd. waxaa kamid ah 2 guri oo ku taala mid kamid ah Minneapolis ku yaala iyo mid Plymouth ku yaala, labaduba waa Minnesota. guri ku yaala Columbus Ohio ilaa iyo 2 gaari oo iyaguna 2021 oo ah Chevrolet Silverado iyo sidoo kale Mercedes Benz. hantidiisaasna in dawladdu ay la wareegto ayay sidoo kale ay doonaysaa. marka xabsi ayay ku jiraan iyaguna wali xukun ayay sugayaan maadaama dambi lagu helay oo aan wali la xukumin. dhinaca kale waxaan ognahay howlgalkii Paris oo dawladda Mareykanku ay sheegtay in dadka qaxootiga ah ee Minnesota la keeno 5600 in dib u baaris lagu sameynayo oo interview laga qaadayo background check lagu sameynayo lana xaqiijinayo sharci ahaanshaha in ay qaxooti u qalmeen markii ay Mareykanka imaanayeen in dad fara badan lagu xirxiray. garsoore federaal ah oo magaciisa la yiraahdo John Tonheim waa kii 3 toddobaad ka hor 28 bishii January soo saaray amal ku meel gaar ah in dadka qaxootiga aan la xiri karin isla markaana kuwa xiran 5 maalmood gudahood lagu soo daayo. marka hadda amarkaasi maadaama ku meel gaar ah toddobaadkan ayuu ku ekaa. waxaa jirtay in hadda Khamiistii hay'adaha u dooda xuquuqda dadka soo galootiga iyo kuwa marka ay Mareykanku yimaadaanba soo dhaweeya qaxootiga in ay uheliyaan Senator Tina Smith oo laga soo doorto gobolka Minnesota iyo xildhibaanad Ilhaan Cumar in maxkamadda horteeda ay shir jaraa'id ku qabteen isla markaana ay wateen boorar ay ku qornaayeen refugees always welcome. markastaba qaxootiga waynu soo dhaweynayna. marka waxay dalbanayeen in garsooraha federaalka uu kordhiyo amarkiisii ahaa in qaxootiga aan la xiri karin kuwa xiranna si degdeg ah lagu soo daayo. marka xildhibaanad Ilhaan Cumar ayaa halkaas waxay ka jeedisay hadal iyadoo sidoo kale xaqiijisay in howlgalkan Paris bishii January marka ay dawladdu ay bilowday ee ogeed inay adkaan doonto in wax ay musuqmaasuqa ay ka helaan. maxaa yeelay waxay qaxootigu waa kuwa sida ugu daran loo soo baaro guud ahaan caalamka isla markaana marka ay Mareykanka ama meelo kale oo wadamada caalamka la geynayo. waxay sheegtay qaxootigu muddo sanadaha ama 10 sano ah ay qaxooti ku jiraan oo ay sugaan in ay fursad u helaan in halkaasi laga qaado. waxaana baaritaano ku sameeyay ay tiri FBI-da, wasaaradda amniga gudaha, wasaaradda gaashaandhigga iyo waliba hay'ado kale. marka waxay tiri ma jirto sabab maamulka Trump ay hadda u yiraahdaan musuqmaasuq baahsan ayaa ka jira systemka qaxootiga Mareykanka lagu keeno. maxaa yeelay waxay tiri waxaan ognahay in arrintan aysan ahayn arrin la xiriirta musuqmaasuq oo ay tahay in la bartilmaameedsanayo dadka madowga ah ama brownka ah wadamada ay ka yimaadeen. maxaa yeelay waxay tiri Stephen Miller ma doonayo in aan halkan joogno. waxay sidoo kale ka hadashay nafsad ahaanteeda oo iyada qoyskeeda in iyadoo 8 jir ah ay dagaalkii sukeeyay Soomaaliya ka soo qaxeen qaxootiga muddo 4 sano ay ku noolaayeen isla markaana ay sugayeen kiiskooda in intaasi la dhameystiro si ay fursad ugu helaan in ay Mareykanka yimaadaan oo riyada Mareykanka ay ka qayb galaan. marka waxay tiri waxaan doonayay nabad iyo deganaansho iyo waliba inaan fursad helo. waxayna xaqiijisay qaxootiyadu kuwaasi ay la mid yihiin. waxay ka soo cararayaan dawladda kaliya Italiya musuqmaasuq dhinaca maxkamadaha ka jira iyo sidoo kalena ciidamada dawladda oo militariga qaar kamid ah wadamadaasi xoog ku haysta. waxay tiri waxaan ognahay in dawladaha kaliya Italiga ah ee albaabada sida xooga dadka ugu soo jabiya iyagoo warranty aan haysan isla markaana dadka qabqabta ilaaleysta bartilmaameesta isla markaana xira in arrintaasi iyagoo aan wax sababa aan u saleynaynin in dadkan ay ka soo carareen laakiin ma aysan rajaynaynin in Mareykankii ay yimaadeen ay mar kale arrintaasi ay kala kulmaan argagax iyo sidoo kale in dhibaato loo geysto. maxaa yeelay markeedii horeba cabasho iyo cabsi ayay ka soo carareen. waxay sidoo kale xaqiijisay Ilhaan Cumar oo maxkamadda horteeda markii ay ka hadlaysay maalnimadii Khamiista ahayd in sababta kaliya ee maamulka Trump arrintan uu sameeyay tahay cabsi gelinta dadkan iyo sidoo kalena in dadkan ay si iskooda ay wadanka uga tagaan. maxaa yeelay maamulka Trump sidaasi ayuu doonaya ay tiri waatan xildhibaanad Ilhaan Cumar oo arrimahaasi ka hadlaysay. When Operation Paris was announced in January, we knew that US CIS would have a hard time finding fraud. Refugees are among the most vetted people in the entire world. People wait years, even decades, to get through the vetting process of the FBI, DHS, Defense Department, and multiple security agencies. There is absolutely no reason for Trump to claim there is a rampant fraud in the refugee system, because we know this isn't about fraud.
This is about targeting people from black and brown countries simply because Stephen Miller doesn't want us here. My family fled civil war when I was 8 years old. We lived in a refugee camp for 4 years, waiting for our paperwork to be processed, waiting and hoping that we would one day have a chance at the American dream, waiting for our chance at peace and stability and opportunity. For many refugees escaping paramilitary violence, masked agents of government, and corrupt court systems. They know firsthand what it's like to be targeted by an authoritarian government. They know what it's like to have their front door smashed in without a warrant. They know what it's like to be surveilled and targeted and arrested for no reason. And they did not expect to finally get to the United States only to experience a similar terror here. What horrifies me the most is that this is really just an excuse to traumatize and terrorize people who have already experienced unimaginable suffering and fear. It is an excuse to drive people out of public life. It is an excuse to break people, to make them so afraid that they are willingly leaving the United States rather than fight the illegal actions of the Trump administration. dhinaca kale xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa waxay sheegtay qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah ee la xirxiray dhibaatooyinka ay la kulmayaan. Waxay tiri inta badan kiisaska dadka marka la xirayo dhaawac ayaa soo gaara, qaarkood waxaa loo diidaa in gargaar caafimaad loo fidiyo, qaarkood waxaa loo qaadaa gobolka Texas, kuwa muddo maalmaha waxaa lagu hayaa dhismaha dowladda federaalka ay ku leedahay Minneapolis ee dadka la geeyo ka hor inta aan goboladaasi loo kala qaadin. Marka waxay sheegtay UIS dad xitaa marka waxay sheegtay hay'adda USCIS dad intay interview ay ka qaadeen green card kooda markii ay siiyeen oo waxba ay ku waayeen dadkaasi in dadkii lagu sii daayay gobolka Texas gudihiisa, qofkiina laga reebtay sharcigiisii, wax green ma haysto ID isla markaana sidoo kalena wadooyinka ayaa lagu sii daayay, dokumentiyadiisina waa laga reebtay. Qofkaasi waxay tiri sidoo dib ugu soo laabanaya halkii laga qaaday. Waxayna xaqiijisay arintaasi caalamkee ayay ka jirtaa, arintaasi wax macnaha ma sameynayso. Waxayna tiri maxay tahay sababta lacagta canshuur bixiyaasha arintaasi loogu adeegsanayo, mana la aqbali kara tiri dadka bini'aadamka in sidaasi loola dhaqmo. Waxay sheegtay in loo baahan yahay isla xisaabtan arintan xaasidnimada iyo sida sharci darada ee dadka loo xirayo. Maamulka Trump hogaamiyaasha ka tirsan oo Stephen Miller uu kamid yahay, wasiirka amniga gudaha Kristi Noem iyo ninka Bovino oo isaguna ciidamada CBP-da hogaamiya iyo dhammaanba xubnaha kale ee ka tirsan maamulka gobolka Trump waxaa loo baahan yahay tiri oo u maleeya inay sharciga kan weyn yihiin in arintan lagula xisaabtamo. waa tan mar kale xildhibaanad Ilhaan Cumar oo arrimahaasi ka hadlaysa. In so many of these cases, people are injured, denied medication, shipped to Texas, or held at Whipple Building for days. People eventually had interviews with USCIS. They were granted a green card, and then they were released on the streets in Texas without phones, IDs, or any way to get back home. In what world does this make sense? In what world is this efficient use of our tax dollars? In what world is this acceptable way to treat human beings? I am so grateful that the advocates and their partners are fighting this in court. And clearly the judge's initial temporary restraining orders show how cruel, unnecessary, and illegal this operation is. And this is just the first step. We need full accountability for the officials who created such a blatant illegal operation. We need accountability for the agents who hurt people and denied medical care. We need accountability for the agents who threw people out into the streets without no way to get home after being illegally arrested. And we need accountability for Stephen Miller, Kristi Noem, Greg Bovino, and every member of this administration who thought they were above the law. arrintan dadka inta la qabto sidoo kale la iska sii deynayo oo sharciyadoodiina laga reebanayo xitaa ID-ga iyo waxyaabaha ay haysteen waxaa lagu ganaaxay qareen ka tirsan dowladda federaalka. garsoore fariisata Minneapolis ayaa waxa ay ku ganaaxday in qareenkaasi dowladda federaalka u doodaya sharciyadan habeas corpus ah oo marka dadka la xiro amaba asylum ha ahaadaan ama dadka qaxootiga ahaadaan loo xareeyo ayaa markii looga guuleystay dowladda waxa ay marka dadkii xabsiga ay ku sii haynayaan amaba waxay ka
reebanayaan dukumentiyadii. Hadda waxaa sidoo kale jirta in qareenkan ay ku amartay qareenkaasi dhinaca dowladda ka socday in haddii dadka la xiro dukumentiyadooda aan la siinin marka la soo daayo maalin kasta oo qofkaasi dukumentigiisa uu ka maqan yahay in qareenkaasi dowladda ka tirsan lagu ganaaxayo $500 Mareykanka. Marka arrintaasi ayaa hadda dowladdu waxa ay sheegtay in kiisasku ay ku fara badan yihiin, laakiin waxay tiri arrintaasi marmarsiya ma noqonayso. Qofku waxa uu xaq u leeyahay marka dambi lagu waayo oo la soo daayo dukumentiyadii laga qaaday in horey loo soo siiyo. Arrintaasina waa ay jirtaa oo hadda qareenada dhinaca dowladda ka socda la leeyahay xadgudubyo fara badan ayay sameeyeen oo garsoore amar uu ku bixiyay dad ay xireen inay soo daayaan oo aysan weli soo daaynin, amaba xitaa dadka Texas inta la geeyay lagu dhexdaayay dukumentiyadoodiina laga reebtay. Arrintaasi ayaa hadda marka dowladda lagu ganaaxay oo garsooraha federaalka ee Minnesota fariista haweeneydaasi ay ku ganaaxday. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta, intaan mar kale kulmi doono. nabadgelyo.